xoogay waxaad ka warantaa sidee ay u dhacday falkan shalay toole ka dhacay rabshadahan ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer rabshadihii shalay ka dhacay anoo ku imi xagga Hargeysa habeen la joogay Burco una imi arrimaha xisbiga ayaa subaxdii aan isri bal ka soo quraaco suuqa ugu horeysay ku hortaala degmada hortiisa oo alkhaysh leeyahay anagoo ka fadhinaya niman darawaliina oo wata baabuurtan iskaqabada la yidhaha ee camiida kasoo qaado dooxa oo mudaharaad meesha ka dhigayaan oo la kulanay booliiskii iyo maayarkii degmada ayaa maaragtay la hadlay si qaab daran bay dabeetana u xuseen waxaa loo diiday ciideyna kasoo guraan dooxa xabashadoodii la hortageen si qaab daran baa loo xilxilay dabeetana arrinkii halkaa taagan ayaa ardaydii nusaaca usoo dareertay dabeetana waxay la kulmeen ardaydii qoladan loo bixiyey aryuda oo dhinacay meel ay ka yimaadeen aan la garanahayn makhaayadii aanu fadhinay oo macalimiinta iyo ardaydii ka buuxda ayay soo taageen amar waxay nagu siiyeen inaanu meesha ka kacno inan koonaan fadhiyo macalin ahaa oo markaa sheekh cabaayo quraacdina dhamaystay ayay igu soo horreeyeen ay yidhaaheen war meesha ka kac waanan maqlayaa inankii wuxuu ugu jawaabay war aniga macalin baan ahaye aan dhamaysta ee inamadaa dhagaxa u diyaarkee tuuraya ordoofa hadalkiibay isku celceliyeen askarigii dul taagnaana intii qorigii degta kasoo riday oo aryuda ayuu madaxa kaga dhuftay sidaas uu dhacay baa dabeetana dadkii makhaayada fadhiyay iyo ardaydii dhagax baa la bilaabay xabad buu ku dhuftay qoriga dabadiisii maya xabad buu ku dhuftay madaxuu kaga dhuftay weliba waan gartay markaa inankii iyo kursigii shaar weysay way isla afgelbiyeen oo dhulkay ku dhaceen dabeetana meesha waanu anagu ka durubnay ardaydii baa yaacday macalimiintii kale meesha fadhidaa iyaguna meeshii ka yaacay suuqii baa laga soo yaacay dhagax baa bilaabmay markaa meydkii isidaheen kuwa booliiska caadiga qaada kiina dhagaxbay maaragtay ku shiideen shacab baa goor dambe oo aada u dambeysay qaaday dabeetana waxaa bilaabmay dee mudaharaad ballaaran oo taageero la gubo oo bariijada la gubo oo la xidho dhalinyaradu ay gaboodin markii la yidhi macalin baa la toogtay ay iskuuladii kasoo wada yaaceen magaaladii ku fideen shaarax kasta mareen dhagaxii qaateen marka magaalada wadooyinka waaweynna way xidheen booliisku marka kaxisbi ciid ahaan idinku dhacdada iyadaa see u aragtaan wallahi dhacdada anagu waxaan u aragnaa ciid ahaan in sharci daro ninkaana lagu dilay sharci darana lagu xidhay nimankaasi ay watay iskaqabooyinka waayo marka la leeyahay darawaliinta ay ka soo qaadina camudooxa wax sharciya ama xeer ah oo loogu talagalo loo diyaariyey ma jirto amarna dee dalkan kama socoto amar kutaaleyna dalka dee kama socoto dimuqraadiyad bayna maamul markaad tahayna intaanad ku dhaqaaqin waa inaad dee xeerkii aad ku shaqayn lahayd samaysaa ee dadkan qaban lahaa ee sharcigii qaban lahaa iminka xukuumadda maayarka iyo barasaabka ka taliya gobolka ama magaalada Burco maray warbaahinta waxay sheegeen in aanay garanayn cidda amarkan bixisay arrinkaas maxaad ka odhanaysaa taasi waa arrin qosol leh maamulka magaalada haysta ee ka taliya booliiskii hoos yimaada waa marka hore booliiska gobolku iyuu hoos yimaada anigu waxaan arkayay arrin dee iska qosol leh oo maaragtay laba mid bay soo gelayaan gabagabadii maxaad soo jeedin lahayd xukuumadda iyo guud ahaan shacbiga Somaliland shacbiga Somaliland waxaan usoo jeedin lahaa inay nabadda iyo degenaanshahooda dhoofaan dawlad ay maanta rijo ka sugaan oo maamul lahoo sharci ay dhaqmaan oo aragtaan laakiin idinka ayaa marka horeba nabad maaragtay idinku fadhiday inaad nabadiina ilaashataan una garoodaan dabaaldega maalintii aynu gaarnay gooniisutaaga madax banaanideena 18 May ayaa wax kasta naga reebay si nabadgelyo ah oo sharaf leh oo qiimo leh qiimaha ay maalinta leedahay aynu siino nabadgelyana ku qabsano dawladda Burco waxa aan leeyahay maayarkan magaalada ka taliya waxaan ogaaday in shacabkuna ka soo taagan yahay isaguna yahay in aad iyo aad u qalafsan oo aan gobol baaxadiisa inta magaalo baaxadeedu intaa la eg tahay
aan mas-uuliyaddeeda qaadi karin. kaasina wuxuu ahaa xogeeye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee dhinaca arrimaha gudaha xuseen xasan badmaax. aad baad mahadsantahay xuseen.